آيات قرآن ودايس إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هداد حنون سنيسان أيقنا وي حنون سنيان سيدادو حنون سنيسان وكله waxaad ilaahay ka rajaynaysaan oo jannaana ma ka rajaynayaan. nimankaas khawaarijta culimmadeenu sheegtay diinteennuna sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam markay soo baxayeen asagoo qaniimo qaybinaya ninkay ka soo farcameen ayuu mid yiri uu soo istaagay nin waxaa la yiri gooman waaweyn oo madax xiiran oo gar dheer oo asagoo dhan bahal weeg bay ka soo farcameen dul khuwaysira la yiraahdo. nabigu wuxuu ku yiri maxamedow cadaalad samee war maxamedow cadaalad samee waxa qaybinaysa cadaalad maahan. markaasaa nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri war hooge haddaana cadaalad sameeyo cadaalad sameynaya. nin asxaabtii ka mid ah soo istaagoo yiri ii bandhee aan qorti ka gooyay nabi allah ka joog buu yiri waxaa hadhowta dadku ku sheekaynayaan ma waxaad rabtaa in dadku ku sheekeeyaan ilaa qofka wuxuu yahay lama yaqaanay asxaabtii nabiga loo malaynayaa nabi maxamed dadkiisii uu dilayay in la yiraahdo miyaad rabtiin buu yiri sallallahu alayhi wasallam lama taabanaya hala daayo. nabigu waa ku sii daray wuxuu yiri wuxuu bilow yahay qoom soo socda quraanka akhrinaya idinka cibaado badan idinka quraan badan idinka soom badan laakiin halkaas ma dhaafaysa diintoodu. haddii aan jooglayna adragtahum haddii aan haleelo oo wakhtigaas ay soo xoogaysanayaan aan joogo la aqtulannahum qatla caadin sidii ilaahay reer caad u diloo kale baan u dili lahaa. waxaana guulaysay fatuuba liman qatalahum aw qataluuh waxaana liibaanay qofkii ay dileen oo janno helay iyo kii dilaba labada xaalaba. anigu 2011 baan nabad sugidda markaan joogay ma culimmadii Soomaaliya isku soo yeeray waxaan ku yiri nimankan waxa weeye iftaka keena wayna adkaayeen culimmo Soomaaliyeed oo ku dhici karta xilligaas hay'adda nabad sugidda meesheeda Sheekh Nuur Baaruud Allah u naxariistay waa ka mid ah waa banaayo yiri xataa maxkamadda iyo waxaasi madaxaad ka wada goyn kartaa. hadda wixii xamar nagu dhex mareen raggan waa joogay ninka odaga iyo taliyihii waa joogay 11 12 markaan ka saarayna xamar afgooye iyo marka ciidanka nabad sugidda ugu horeeyay ciidanka la amisoomtii markay shalaanbood nooga hareen baan galnay ilaa jawhar. nimankaas marka waxay wax ku leeyihiin naseexo ma leh waana ma leh. nabiga sallallahu alayhi wasallam baa tamaniyay in la dilo oo hadduu joogi lahaa xilligay soo badaa xilli dambe soo bateen oo isaaruusay xilligii cali bin abi taalib waaye xilligay gruubka noqdeen oo koox meel taagan oo lala dirirayay noqdeen laakiin markaas halkaas nin iyo dhowr qof ay ahaayeen oo ku fikira. nimankaas marka ayaan isaynaa ma dhammaanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ma dhammaadaan waa la dhammaynayaa meel bay ka soo daahirayaan magac gooni ay ku soo daahirayaan meeshaasaa laga dhammaynayaa meel kale ay ka soo daahirayaan ilaa marka u dambeeya masiixu dajaal bay la soo baxayaan ayagoo jaal ah. waxaan la dirirayna horta waxaas diintu noo sheegeen weeye ilaahay idankiis waa ka guulaysanayna Soomaaliya horta waa laga tirtiraya mar daacish ha la baxaan mar al-shabaab ha la baxaan mar jabhatu nusra ha la baxaan mar al-qaacida ha la baxaan kun magacay leeyihiin adduunka laakiin waa kuwaas diintan akhrinaya waxyaalaha la yiri yaqtuluuna ahla al-islaam buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka islaamka bay dilayaan wayad'uuna ahla al-awthan gaaladana waa ka tagayaan taawan maayaan waa aragta markay afduubtaan xogaa yar oo lacag ku bedelanayaan askarteena iyo qof kale markuu gacan galana waa dilayaan waa tilmaamihii laftoodii la tilmaamay leeyahay. nimankaas lala dirirayaa shaqo fiican baan haysin runtii waxaan bogaadinaynaa ciidanka in ay adkaystaan sidaas wasiirku sheegay 17kii Badar bay rabeen meelo badan inay guula ka sheegtaan laga soo bilaabo Xardheere lagu xijiyay Daaru Nicma oo sida la og yahay tuuladii u dhaweyd tuulada maxamed wasiir balcad maantay baqtigooda la dhigay diyaaradii inta lala dul tagay ilaa iyo Bokool inay 17kan sheegtaan bahayd maanta ay guul sheegtaan oo maalinkii Badar ay yiraahdaan dagaalkii oo kala qaadnay ciidankii baan jabinay laakiin waa ku gadoontay taliyaashoodii bay uga tagayaan baqtigii meelahoodii
marka ciidanka xasilinta ee magaalada muqdishona runtii shaqada uu qabtay xalibeen dhaweete kaaraan baan ku afur dadka waa ducaynayeen meel kastoo la tago duca la hayaa dadkeenna loo dhafrayaa dadkeenna loo soo jeedayaa dalkan wiilashiisii difaaci lahaana idinka waay khawaarijtaasna ka dhammayn lahaa waxaan baraarujinaynaa in hawshaas si fiican loo sii wado aan laga daalin aan laga quusan siyaasaadka iyo dadka dacaayadaha wadana aan loo gigsan oo aan maaragtay loo dabcin in loo gigsado dacaayadda way iska jirtay munaafiqiintu masaajidkii rasuulkay joogeen asxaabtay cabsiinayeen kulaylkan ma ku dagaalami kartaan dhibaatadan maxaa idinku wacan ma iska raaxaysataan bay lahaayeen waa jirtaa markii wax yar ciidankeennu ay gaaraan kuwa buunbuuninaya khawaarijtu markii wax gaaraanna naxaya munaafiqiintaas xilli kasta way joogeen wax la siyaasa باقولي باي waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beelay boqorku bad cagta beelay bidix iyo midig boodon iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier mastercard ay sorry way waan saxay iska ilow xuduudaha ku adeego premier mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan